laba lamaane oo soo dalxiis tagay jasiiradda Manila ee ku taala dalkaasi Philippines baa waxay la kulmeen wax ay la yaabeen, qaas ahaan ninka. Markii ay yimaadeen jasiiradda agteeda baa waxaa ka halaabay gaarigii ay wateen. Ayagoo lugeynaya ayaa waxaa arkay laba ka tirsan laamaha amniga ee jasiiradda, kuwaas oo su'aalay intee ka imaatay. Halkaa ayay gaariga raacayaan ayuu yidhi, waxaana la geyn doonaa. Markaasi ayaa labadii lamaane waxay leeyihiin Manila, waxaan ka imaanay Philippines, waxaana u soconay jasiiradda naljaarka ah ee Manali. Laamaha amniga ee jasiiradda ayaa dhahaya, soo baxa meeshaan, kuma lugeyn kartaan keligiin, aniga ayaan isiin dhaweynaya. Halkaas ayayna maqaaxi ka cunteynayaan. Maqaaxida ayaa ah meesha noloshooda xume ay ka bilaaban doonto. Waxayna kula kulmi doonaan laba lamaane oo waayeel ah, kuwaas oo caawinaad ay weydiisan doonaan. Kadibna waxa ay raaci doonaan labadii lamaane ee waayeelka ahaa, kuwaas oo u raaci doona gurigooda. Gurigaas ayaana ah gurigii geerida ay ku gaari doonta labada lamaane. Ugu dambeyntii waxaa la gaaray habeen oo waxa ay joogaan miiska cashada. Meeshaas ayaa waxaa ku doodi doonaan labadii lamaane ee waayeelka ahaa. Labadii lamaane ee u soo martiyay ayaana dhihi doona, annaga darteen intaas ku dagaal leedeen, annaga ayaa idinka tegayno ee naga raali noqda. Labadii lamaane ee waayeelka ahaa ayaa arrinkaasi ka soo horjeesan doona, waxayna dhihi doonaan, xilligani waa xilli habeen ah, mana bixi kartaan marka waaga baryo oo subax baxa. Sidaas ayayna ku qanci doonaan oo waxa ay jiifan doonaan habeenkii si ay subax u baxaan. Xilli uu waaga baryay ayaa labadii lamaane ee waayeelka ahaa oo xilli hore soo kacay ayaa quraacdii diyaariyay. Ayay soo kici doonaan labadii lamaane, markaas ayayna dhihi doonaan, ma doonayno xalay wixii miiska cashada ka dhacay mar kale inay ka dhacaan, sidaa darteed waan iska baxaynaa. Sidaas ayayna ku heshiiyeen labadii lamaane ee martida ahaa. Ayaga oo bixi raba ayayna dhihi doonaan, inala quraacda oo saakadii hore ayaan quraac idin diyaarinay. Markaasi ayay diidi doonaan labadii lamaane ee martida ahaa, kuwaasi oo ku dhihi doona, maqaaxi ayaan kasii cunteyn doonaan inta aan sii socno. Labadii lamaane ee waayeelka ahaa ayaa xanaaq dartiis waxay dhihi doonaan, cid aan quraacan meeshaan lug ka saaray sirida. Markaasi ayay ku qasbanaan doonaan in ay cunaan quraacda. Labadii lamaane ee martida ahaa ayaa quraacda marka ay dhammaystaan istaaga ka dhici doona. Ileen quraacda kaniini ayaa loogu daray, kuwaas oo suuxi doona. Waxaana lagu xiri doonaa qol maqaasiin ah. Waxa ayna soo naaxi doonaan habeen saqbarkii, kuwaasi oo isku dayi doona in ay jabiyaan albaabka maqaasiinka. Isla markaana ayagoo baxsanaya ayaa waxaa soo kici doona labadii lamaane ee waayeelka ahaa, kuwaasi oo careysan, watana banduuq, una soo kaba gashtay in ay dilaan labadii lamaane ee martida u ahaa. Iyaga oo sii baxsanaya ayayna xabad ka daba tuuri doonaan oo waxay la haleeli doonaan labadii lamaane ee martida ahaa. Kadibna laamaha amniga ayaa si degdeg ah ku imaan doona, waxa ayna tooga doonaan labadii lamaane ee waayeelka ahaa. Qisadii ka dhacday jasiiradda Manali ee ku taala dalkaasi Philippines intaas ayay nooga eg tahay. Idinkuna channelka subscribe dhaa, videogana like gareeya.